Waa maxay socialism? Socialism waa nidaam dhaqaale iyo bulsho oo diiradda saaraya lahaanshaha guud ee kheyraadka iyo wax soo saarka, iyadoo si siman loogu qeybiyo bulshada. Halkii wax soo saarka iyo ilaha dhaqaale ay gacanta ugu jiri lahaayeen dad gaar ah ama shirkado gaar loo leeyahay sida capitalism-ka oo kale, socialism wuxuu ku saleysan yahay in dowladdu ama bulshadu si wadajir ah u maamusho si loo xaqiijiyo sinaanta iyo cadaaladda bulshada. Waxaa jiro noocyo kala duwan oo socialism ah, kuwaasi oo ay ka mid yihiin: kow waxaa ka ah democratic socialism. Waa xukuumadda iyo dadka oo iskaashanaya nidaam hufan ama iska kaashanaya nidaam hufan. Noocaas waxaa loo yaqaanaa democratic. Democratic socialism-ku waxaa lagu dhaqmaa doorashooyin dimuqraadi ah, balse dowladdu waxay gacanta ku haysaa adeegyada asaasiga ah si loo hubiyo sinaanta bulshada. Wadamada Scandinavian-ka sida Sweden, Norway iyo Denmark ayaa tusaale u ah. Nooc labaad waxaa loo yaqaanaa communism ama Marxist socialism, labada isku mid ah. Waxaa saldhig u ah fikraddii ninka la dhihi jiray Karl Marx, waxaana lagu dhaqmaa in dowladdu ay si buuxda u maamusho dhammaan kheyraadka dalka, iyadoo la baabi'inayo kala sarreynta bulshada. Nooca saddexaad isagana waxaa la yidhaahdaa waa libertarian socialism ama utopian socialism, labada isku mid ah. Waxay aaminsan tahay in bulshadu la xoreeyo. Aragtidan waxay aaminsan tahay bulshada in xor laga dhigo oo hantida guud ee bulshadu ay si toos ah dadweynuhu u maamulaan, iyadoo aan dowlad xoog leh loo baahnaynba. Goorma ayuu bilowday socialism? Fikradda socialism waxay soo ifbaxday qarnigii 18aad iyo 19aad, gaar ahaan xilligii kacaankii warshadaha Industrial Revolution. Marx iyo Engels waxay daabaceen The Communism Manifesto sanadkii 1848, taasoo ahayd mid ka mid ah buugaagtii ugu saameynta badnaa ee aas-aaska u dhigtay socialism iyo communism. Dowladihii ugu horreeyay ee hirgeliyey socialism waxaa ka mid ahaa Midowgii Soviet oo la aasaasay 1922 kadib kacaankii warshadaha ee 1917. Kadib dalal badan sida Shiinaha, Kuuba iyo Vietnam ayaa qaateen socialism oo ay ku maamuleen dowladahooda. Waa maxay sababta loo hirgeliyey socialism? Socialism waxaa loo hirgeliyey sababo ay ka mid yihiin: kow, in la ciribtiro kala duwanaanta dhaqaale ee ka dhex jira bulshada. Labo, in dadka la siiyo xuquuq siman oo ay helaan waxbarasho, caafimaad iyo shaqo. Saddex, in laga hortago farqiga iyo dulmiga ka dhasha nidaamka capitalism. Afar, in kheyraadka qaranka loo maareeyo si hufan, iyadoo laga fogaanayo in dad yar ay dhaqaalaha wada haystaan. Yaa aas-aasay ama taageeray socialism? Dad badan ayaa kaalin weyn ka qaatay fikradda socialism. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Karl Marx, aabbaha socialism-ka casriga, wuxuuna qoray buugga Das Kapital. Laba waxaa ka mid ahaa Friedrich Engels, wuxuu la shaqeeyey Karl Marx, wuxuuna ka qayb qaatay qorista The Communism Manifesto. Vladimir Lenin ayaa ahaa dadkii gacanta ka geystay, hogaamiyihii kacaankii Ruushka ee 1917, wuxuuna aas-aasay Midowgii Soviet. Mao Zedong, hogaamiyihii kacaanka Shiinaha, wuxuu keenay socialism oo uu ku saleysan yahay Maoism. Che Guevara, halyeegii Cuban Revolution, wuxuuna taageeray socialism iyo kacaanka. Sidee ayuu socialism u shaqeeyaa? Socialism wuxuu u shaqeeyaa iyadoo la hubinayo in dowladdu ay maamusho warshadaha iyo adeegyada muhiimka ah sida caafimaadka, waxbarashada iyo gaadiidka. Sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa lahaanshaha guud ee kheyraadka dabiiciga ah sida shidaalka, biyaha, macdanta, si looga fogaado in dad gaar ah faa'iido ka sameeyaan. Sida uu shaqeeya waxaa ka mid ah shaqada iyo dakhliga la isku miisaamayo si dadka oo dhan ay u helaan mushaar cadaalad ah ama mushaar siman. Cashuuraha sare
oo la qaado si dadka taajiriinta ah ay wax badan ugu bixiyaan bulshada. ugu dambeyn, socialism waa nidaam dhaqaale iyo bulsho oo diiradda saaraya sinaanta iyo horumarka guud ee bulshada. wuxuu u leeyahay taariikh dheer laga soo bilaabo qarnigii 19aad, wuxuuna saameyn weyn ku yeeshay dalal badan oo caalamka ah. waxaa jira dad taageersan iyo dad ka soo horjeeda, iyadoo la isku hayo in socialismku uu hagaajinayo bulshada amaba inuu caqabad ku yahay horumarka dhaqaale. waxaa jira wax weliba manfaco iyo khasaare ay leeyihiin. maxaa waaye khasaaraha uu leeyahay? waxaan ku hormari doonaa faa'iidada uu leeyahay socialism. faa'iidooyinka waxaa ka mid ah sinaan bulsho. waxaa meesha laga saaraa farqiga u dhexeeya dadka saboolka ah iyo kuwa taajirka ah. faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah caafimaad iyo waxbarasho bilaash ah. dadka oo dhan waxay heli karaan adeegyada asaasiga ah iyadoo aan la eegayn dhaqaalaha qofka. waxaa ka mid ah faa'iidooyinkiisa shaqo la'aanta oo yaraata. dawladdu waxay abuurtaa fursad shaqo oo si rasmi ah si loo yareeyo shaqo la'aanta. faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah xasilooni dhaqaale. waxaa la xakameeyaa sicir bararka iyo xasaraadaha dhaqaalaha. kuwaasi waa faa'iidooyinkiisa. haddaba daawade, waxaad la barbar dhigtaa khasaaraha ama dhibaatooyinkiisa aan sheegi doonno. haddaba socialismku ma mudan yahay in dalkeenna uu ku dhaqmo, mise ma mudnaa in aan horay ugu soo dhaqannay? dhibaatooyinkiisa socialismka waxaa ka mid ah waddanka dhaqaalihiisa oo liita. sababtoo ah dadka kuma dhiiran karaan ganacsiga gaarka ah, taasoo hoos u dhigita kobaca dhaqaale. maadaama la yidhi qof kastaahi dhaqaalihiisa xor uma ahno dawladda maamusha, qofkaasi ma ku dhiiranayo inuu dhaqaalo badan sameeyo. lambar 2, dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah dhiirigelin la'aan shaqo. haddii qofka si isku mid ah mushaar u helaayo oo kan dadaala iyo kan kaleba isku mishaar ay yihiin, wax badan kama fikiri doono horumarinta xirfadiisa qofka. lambar 3, dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah dawlad awood badan. dawlad aad u xoog badan ayaa abuuri karta nidaam kalitalis ah ama dictatorship sida midowgii Soofiyeed, xitaa dawladeennii kacaanka ee Siyaad Barre. qodobka 4 ee dhibaatooyinkiisa waxaa ka mid ah musuqmaasuq. maadaama dawladdu ay maamusho wax weliba, musuqmaasuq badan ayaa dhici kara. waan ka hadli doonaa capitalism, laakiin isbarbardhigooda wax yar aan sii taabanno. socialism iyo capitalism farqigooda. socialism iyo capitalism waa laba fikradood oo iska soo horjeeda. capitalism waa nidaam qof kasta uu xor u yahay inuu samaysto ganacsi, hantidiisa si gaar ah u maamulo, waana la tartamaa. qofkii dadaalaa ayaa hodmi kara, balse saboolka ayaa sii sabool noqonaya. laakiin socialism sidaa wuu ka duwan yahay. socialismku wuxuu rabaa in dadku ay siman yihiin si aysan u jirin farqi u dhexeeya kuwa taajirka ah iyo kuwa saboolka ah.